dowladda Soomaaliya iyo hay'adda caafimaadka adduunka waxay sheegeen in tirada rasmiga ah ee dadka u dhintay COVID-19 ay ka yar tahay 100. laakiin marka xagga sare laga eego waxa muuqata in qabuuruhu ay degdeg u buuxsamayaan. qof walba ilaahay masiibada inuu ka qaado jaribaad iyo mucjizaad jirta ilaahay naga qaado. BBC Africa ayaa ogolaansho naadir ah loo siiyey in wax ka duubto furinta hore ee la dagaalanka fayraska Soomaaliya. asigana walmasiisa wuxuu ka caawinayaa oo kaliya naqaska in yar ku dhagayo. waxaanu baadi goobaynaa xaqiiqda tirada rasmiga ah ee ku dhimatay COVID. xalay oo halkiisa naga dhintay. waxay ka aaminsan yihiin meel isbitaalka meel lagu dhimanayo meel xabsi ah oo maxaa la dhahaa aysan awood heli karin oo aysan soo bixi karin. sidee buu waddan ka mid ah dawladaha ugu taagta daran nidaamkeeda caafimaadna liito dhabtii ula tacaalaysaa cudurka dilaacay ee COVID-19? dawladdan tabarta daran ee Soomaaliya waxay filaysaa xaalad adag. kiiskii ugu horreeyay ee COVID-19 waxaa lagu dhawaaqay bartamihii Maarso, waxaana laga cabsi qabaa in dad badan oo kale uu fayrasku soo rito. Martini waa mid ka mida isbitaallada ugu da'da weyn dalkan. dawladda ayaa u qoondaysay in lagu dabiibo bukaannada. wuxuu leeyahay 20 sariirood oo xaaladaha degdegga ah lagula tacaalo bulsho 16 milyan gaaraysa. magacaygu waa Dr. Cabdilatiif Maxamed Xuseen, waxaan joogaa isbitaal Martini. waxaan ka mid ahay dhaqaatiirta runtii ku jirta frontline-ka oo la tacaalaysa daaweynta xanuunkani COVID-19 bukaanada. tiro dhakhaatiir iyo kaaliyayaal isugu jira ayaa ku tabarucay inay daaweeyaan bukaanada fayraska. isbitaalka waxaa inoo jiifa 10 bukaan, 2 ka mid ah ayaa xaaladooda ay critical tahay. qaar ka mida shaqaalaha caafimaadka ayaa hawshan halis u arkay, go'aansadayna inayna ka hawlgelin halkan. Dr. Cabdilatiif iyo qaar kalena waxay xil iska saareen inay ku sii nagaadaan. hadafkeennuna waxay ahayd wax kale ma ahayn inaan dalkeena iyo dadkeena wax u qabanno. waayo haddii dhakhtar walbaba uu dib u gurasho uu sameeyo ama xanuunkan uu ka baqo waxaa laga yaabaa maanta caawqaani meesha uu taagan yahay inuusan taagnaan lahayn haddaan anagu u istaagi lahayn. Dr. Cabdilatiif wuxuu BBC Africa ay ka aqbalay inuu duubo shaqadiisa iyadoo uu cudurkan safmarka ahi sii fidayo. waxaa ii mid case emergency ah oo degdeg ah oo urgent ah oo aan rabo hadda inaan u cararayo. السلام عليكم. magacayga waa Dr. Xilwa Daawud Ibrahim. aan maxaan nafteeda u horay inaan u shaqeeyo dadkayga. alxamdulillah waan ku qanacsanahay. Dr. Xilwa waa hooyo keligeed korisa gabadheeda yar. waxay iyada iyo shaqaalaha caafimaadku karantiin ugu jiraan isbitaalka si ay gacan uga geystaan joojinta cudurkan COVID ee ku fidaya bulshada. waxaa gali doonaa 14 beriyo shaqaa isbitaalka ku xaroon doonaa. sidoo kale waxay ka walbahaarsan tahay inay fayraska u gudbiso waalidkeed oo da'ah isla markaana qaba xanuunno kale. insha Allah waa ku xiisi doonaa hooyo. marka fursad helan waa kula soo hadli doonaa. waana marxalad aad u adag. adoo og in wax yar ay iska qaladid in xanuunka kugu dhici karo. isbitaalka Martini oo la dhisay 1910kii ma aha mid si hufan u qalabaysan. isla dabayaaqadii April 32 qof ayaa ku dhintay halkan. qaarkood waxay sababsadeen qalabka caafimaad oo ku yar. bukaanada inta u badan waxay u dhimanayaan oksijiin la'aan. bishii koowaad dhibaatadan nahaysato waxay ahayd qalab fiican maanan haysanin. bukaanada oksijiin u baahanaa naloo keenayo oksijiino yacni nagu filan ma heli karin.
haweenaydan waxay London uga timid inay soo booqato qaraabadeeda. saygeedii ayaa ku xanuunsaday halkan, isbitaalka ayuuna ku geeriyooday. xanuunka marka qofkan aan dhahayo qofkaaga u dhintay يعني xanuunan dareemay oo ah qofka san qofkiisa la joogin oo hadana dhintay يعني aad ay u xanuun badan tahay أنا كل جاي صانق هلا ما إيمان الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. dad ku jira isbitaalka Martini ayaa u dhimanaya COVID-19, laakiin wadooyinka Muqdisho noloshu si caadi ah ayay isaga socotaa. coronavirus oo ah xanuun ka jira caalamka, calaamadaha ugu weyn ee cudurkan waa qandho, qufac iyo neefqabasho. haddii aad isku aragto qandho, qufac iyo hindhiso, ha tegin meelaha bulshada isugu yimaadaan sida masaajidka, suuqyada, aroosyada iyo wixii la midka ah. dawladdu xoga caafimaadka bulshada ah ayay faafinaysaa iyadoo adeegsanaysa fariimo cod ah iyo baraha bulshada. waxay sidoo kale aasaastay goob la soo waco oo talooyin caafimaad bixisa, isla markaana laga maamulo taageerada caafimaad. si aad u jeedaan koolalka aad u tiro badan yihiin. hadda qofkii oo aan ka qoray listiga wuxuu ii sheegay calaamadihii aan ku naqaynay COVID-19. laakiin waxay u muuqataa in dadka soo wacaya intooda badan aanay dhab ahayn. coronavirus. Hello. أدري معن كل كمشغولها كدقين يا أيوة محن كعبنا مرة بدون وجه تعرو إلى نصوّع عن وكل كمشغولها كدقان مركا ماما أديكم هتسمى العروض تكيل عليها نمبر كان فوض إلى نصوّع عن هاي سكوارك تي أو علامة أو عن كعبنا aniga meel waxaa jooga miiraha mustaqbalay oo baadiye ah marka madaxanuun iyo qandho iyo qofka qallalan. qofkan soo wacaya wuxuu u muuqdaa qof si dhab ah u xanuunsan, laakiin wuxuu ka soo wacayaa goobo Soomaaliya ka mid ah oo ururka Al-Shabaab haysto. dawladda khadkeedu wuxuu gaaraa goobo badan oo ka mid ah dalka, laakiin maamulkeedu ma gaarsiisna. xukuumaddu waxay dadka kula talinaysaa inay guryahooda joogaan maalinkii, laakiin tiro yar ayaa awooda inay taladaa qaataan. anaga waxaan ahay mootaaliyaanahay laakiin waxaa korona cabsidiisa waxaa ka tira cabsida baahida laba cadow hadday imaatane midka tirna la qaadana. dowladda Soomaaliya waxay leedahay guryaha la joog. wadamada horumaray waxay leeyihiin guryaha jooga lambarkaana soo bax waxaad u baahan tihiin iyo waxaad rabtaan noo sheega. guryaha dadka raashinka lagu geeyaa, daawooyinka lagu geeyaa. anaga dowladda baa ogtoonay inay waa tabartaati waxaad ahayn. soddomeeyo sano oo dagaal iyo sharci la'aan ay jirtay kadib, dawladda Soomaaliya jiritaankeedu wuxuu ku tiirsan yahay gargaar shisheeye. ma haysato kalsoonida iyo awoodda ay dadkeeda ugu adeegi lahayd. muwaadiniinta Soomaaliyeedna lama qabsan inay helaan adeeg bulsho. fikirka shacabku wuxuu muujinayaa in khatarta COVID-19 ay tahay mid laga badbadiyey. okay waxaan isleeyahay laakiin waxaan in laga buubuunin ay tahay oo macnaha oo laga badbadiyey. hadda macnaha magaalada kama jirto wax hadda aan arki karno in yar wadada iska cabsanaya moogi oo iska xiranaya moogi. dhalinyaro iyo kuwa da'ah ayaa lagu wada dawaynayaa isbitaalka, waxaana la tacaalaya Dr. Xilwa, Dr. Cabdiladiif iyo asxaabtooda. ninkan da'diisu waa 30, carruur yaryar ayuu aabbe u yahay, hadda ayaana la keenay. bukaankan sokor uu qabay oo
nooca type 1 kala yiraahdo qabay then emergency asiga noogu yimid xogaa kadib xogaa ka hor laba bukaan ayaa saaka dhakhaatiirta ka geeriyootay waxayna ku dadaalayaan inaanu qof kala geeriyoon then sina cardiac arrest uu galay waxa uu sameeyay station waa ka jawaabay hadda baalsaha waan u joogaa waxa uu sii wadaynaa kaarka inta noo dhiman insha Allah laakiin maaskada gadaasheeda dhakhaatiirta waxaa rajo dilaya qalabka caafimaad ee liita ee ay ku shaqaynayaan mashiinka hawada oo aanan shaqaynayn darteed dhakhaatiirtu waxay ku guuldarraysteen inay badbaadiyaan bukaankan wuxuu ahaa 34 jir wuxuuna ka tegey 11 carruura waana ninka kaliya ee da ahaan yar oo isbitaalka inoogu geeriyooday ayuu ahaa waayo wuxuu qabay bukaankaasi ama marxuumkaasi Allah u naxariistay wuxuu qabay sokor waa bilowgii bisha Maajo 7 usbuuc ayaana laga joogaa markii kiiskii ugu horreeyay ee COVID-19 laga helay Soomaaliya botanka marka la tiriixaysa ma garata waxaad soo maqlaysaa afka mootorka inuu soo kacayo qiimaha waa oxygen supply kana waa airka internal compressor qalab aad loogu baahnaa ayaa deeq caafimaad oo caalami ah ku soo gaadhay isbitaalka Martini dhakhaatiirtu waxay qalabkan baranayaan iyagoo ku shaqaynaya waa la programinayna inta engineer waa ma waa shaqaynayeen laakiin waxa isku saxay barashadka iyo mishinka xaqiiqda jirta waa in isbitaalku da' yahay kaabayaashiisuna ay ku adag tahay inay ku shaqeeyaan mashiinadan casriga ah kadib maalin kale oo ay xaalad adag ku shaqaysay iyo saacado badan Dr. Xilwa waxay kala war qaadanayaan gabadheeda 4 jirka ah wali waxa ay ku kala maqan yihiin karantiilka lagu soo rogay isbitaalka Salma macsiha hooy anigana wasku imaanayna insha Allah even habeenkii kalaama shaqada ku soo daaho ilaa anika imaado maseexan jirin way soo jirtay Salma ashhadu an waa bishii barakaysnayd ee Ramadaan inta badan Soomaalida waa muslim cibaadaysta iyadoo in badan oo dunida ah ay masaajidadu xiran yihiin si loo hakiyo cudurkan safmarka ah guud ahaan masaajidada Soomaaliya way furan yihiin balse waxa kale oo jiro oo cabsidu dhinac yaala طبعا umadu waa ummad islaam ah una baahan dhacdooyinkan sidan oo kale markay dhacaan ama ay yimaadaan طبعا waa meesha loo cararayo waa baytullaahi waa guriga Allah tahay طبعا ayad quraan ay oranayso fafiru ila Allah alla xaqiisa u carara marka sidaa darteed cabsidu way jirtaa balse ayadoo jirtana nooma diideyso inaan hadda beydkii Allah inaan magan galno allana aan barino dadkan qaarkood waxay aaminsan yihiin in diintu gaashaan u tahay waxay taasi ka hor istaagtay inay qaataan talooyinka caafimaad wallahi niyo cudurkan horta waa jira laakiin ninka ilaahay ugu talagala uu ku dhaca ma fahanti aniga dad muslimaan nahay masaajidka kama maarano waa tukanaynaa baabuurta waa israacaynaa waa shaah isla cabaynaa ma fahanti wixii ilaahay qofkii ilaahay ugu talagala ku dhaca bis qof kale kuma dhici karo cudurkan saas aaminsana dadkani waxay aqbaleen rabitaanka Alle dhanka kalena gaadiidka gargaarka degdega ah ayaa bukaanada COVID ku daldalaya isbitaalka Martini haweenaydan waa hooyo Faadumo muddo ka badan 7 ayay la xanuunsanayd astaamaha COVID-19 sida dunida inteeda kaleba da'da ayaa ka dhigaysa qof u nugul saamaynta fayraska
waxaa lagu baadhayaa isbitaalka martini. haye hooyo wiilashaydi haye waa la bukooda waxa uma leewaan aga kicina shaqaalaha caafimaad ee isbitaalka martini waxay shaqeeyaan ilaa 16 saac maalintii iyagoo xidhan dharka difaaca. heerkulka maalinkii wuxuu kor u dhaafaa 30 darajo. wallaahi 8 saacadood iska dhaafay 2 saacadood hadaa wadato dharka BPE-ga dhakhaatiirta iyo nursinka dharka marka la xiran yahay marka saas iskaga bixisid maxaa la dhahaa waxay leedahay hal garaafo biyo laga shubay leedahay qaarkood nursinkeena ayagoo dharkaas wataan gabdho si u shaqeynayeen istaaga ka dhaceen oo maxaa la dhahaa meesha ku suuxeen. tiro badan oo ka mid ah shaqaalaha isbitaalka martini ayuu ku dhacay COVID-19. si ay u ilaaliyaan bulshada waxay weli ku jiraan karantiil isbitaalka dhexdiisa ah. waa dhakhaatiirta isbitaalka aan ka wada shaqeeyno waxaan dhihi karaa intaan ka warqabo 90% wuu ku dhacay xanuunkii oo anigaan ka mid ahay xitaa xanuunkii wuu ku dhacay xitaa waxaan sameeyey baaris positive ayaan noqday daawo intaan heli kara ayaan qaatay waan isdaaweeyey 40 sac kadibna shaqadii ayaan dib ugu laabtay oo Dr. Cabdiladiif wuxuu isku dayayaa inuu yara nasto laakiin ma suuroobin. waa bukaan kale Cabdixafiid Yuusuf wuxuu u baahan yahay caawimaad degdeg ah. xaaladiisa waa ay ka sii daraysaa. dhakhaatiirtuna waxay doonayaan inay geeyaan qolka raajtada si ay u baaraan sanbabadiisa. laakiin oksijiintiisa ayaa aad hoos u dhacday. dhakhaatiirtu waxay ka shakisan yihiin inuu nolol ku gaadhi doono qolka xiga. Cabdixafiid isaguba wuu gartay wuxuu bilaabay inuu ducaysto. mahmaah Soomaaliyeed ayaa tidhaahda nin weyn wadkii wuu yaqaan. dhakhaatiirtu waxay go'aansadeen inay ku celiyaan sariirtiisa. maalin kadib Cabdixafiid wuu geeriyooday. wuxuu ahaa macallin quraan, aabe, awoowe iyo weliba oday ay bulshadu si weyn u qadariso. waa qof kale oo u dhintay COVID-19. tirada u dhimatay COVID-19 ee dawladdu soo saartay weli waa in ka yar 100 qof. laakiin waxaa la sheegayaa in tirada dhabta ah ee u dhimatay cudurkan ay aad uga badan tahay intaas. waxaan aadnay qabuuraha barakaad si aan u baadhno. muuqaaladan satellite-ka ahi waxay muujinayaan qiso kale. bishii Janaayo halkani dhul bannaan ayay ahayd. haddana waa goob qabuuro oo ballaadhan. BBC Africa ay waxay booqatay dhowr qabuuro oo ku yaala Muqdisho waxaana ogaanay in tirada qabuuraha ay 4 jibaarmeen marka loo fiiriyo 3 usbuuc ee ka horreysay intii aanu COVID-19 dilaacin. waan ugu adag yahay hoostan mujada argaduud baaye marka maalinkii anugu waa iska diyaarinaa wadku waa iska diyaarinaa mar haddiina loo imaado aadan wuxuu ka mid yahay xabaalqodayaasha. goobtan wuxuu ka shaqaynayay 8 sano. halkani waa qayb cusub oo qabuuraha barakaad ka mid ah. waxaa la hawlgeliyey tan iyo bishii Janaayo.
hadda meeshaan micnaha aniga 4 bilood iyo jajabaan joognaa waxaad ogaanaysaa hadda micnaha hal dhimashada micnaha 2,000 iyo hoogay maraysaa hadda waa kolley waa iska qiyaas kartaa adigaba micnaha magaalada intii maalintii ka imaanayso ya bishii hore micnaha ilaahay amarkiis guriga markaan tagno iyo markii aniga aan seexado waan xasuustaan iyo dhimasho kolley nin walba micnaha godkaas u galaa lama xaqiijin karo laakiin caddaymaha aan ururinay marka la fiiriyo waxay u muuqataa in covid-19 yahay mid ka mid ah dilayaasha ugu waaweyn ee Soomaaliya dadka u dhimanaya fayraska kuma eka caasimadda Muqdisho waxaan maqlaynaa in dad tiro badan ay ku dhimanayaan qaybaha kale ee dalka meydadka wali waa la keenayaa intooda badan kama imaanayaan isbitaalka Martini dadku way tukanayaan laakiin kala fogaansho bulsho ma jirto nafsi daa'iqatul mawt naf walba waxay dhadhaminaysaa mawt ayay dhadhaminaysaa ina qof walba ilaahay masiibada inuu ka qaado jaribaad iyo mucjizaad jirta ilaahay naga qaado marxuumiintan sida kuwa badan oo kale waxaa lagu sheegay calaamadaha covid-19 balse waxay ku dhinteen guryahooda iyagoo aan la baadhin waa maalin ciid ah maalinta ugu mudan sannadkan ee ay muslimiintu ciidaan muslimiinta caalamka waxa ay dawladahoodu ka hor istaageen inay dad badan isu yimaadaan laakiin halkan noloshu waa iska socotaa iyadoo tirada uu ku dhacaya fayraska ay sii badanayso caasimadda Muqdisho BBC Africa waxay booqatay 4 degmo oo ka mida kuwa ugu waaweyn in ka badan 10 ka mida masaajidada ugu waaweyn iyo isbitaallada khaaska loo leeyahay waxaa muuqata in tirada dhimashada ee bishii Abriil iyo Maajo ay si sare u kacday bil iyo maalmo dhexdood imaamkan wuxuu janaaso ku tukaday meydad ka badan 60 qof kuwaas oo ku xidhnaa masaajidkan imaamyo kalena waxay noo sheegeen sidaas oo kale tobankii hore ramadaanka iyo 15 Shacbaan u dambeysay janaasooyin badan masjidka la keenay way jiraan aad u badan meydadka lagu tukaday inta badan lama geyn isbitaalka Martini si loo daweeyo waxaan imaamka weydiinay sababta dadku badi guryooda iska joogeeno hadde waa warar badanaa soo gaara dadka oo meel hebel dadkii la geeyey iyo arrimihiisa qof meel ku xayiratay istaalada iyo sidii qaar dadka waxbaa ka dhaadhacsan qaarkood oo istaalkii hore ma aysan aadin Soomaaliya way adag tahay in la kala sooco warka suuqa iyo xaaladda saxda ah dad badan oo reer Muqdisho ah waxay ku shaabeeyeen Martini isbitaalka dhimashada hosteli 64 waa oksijiintiisa bukaankan mar dhow ayaa la keenay neefta ayaa dhibaysa hadda oksijiintiisa ilaa 72 uu sii maraa marka yani tartiib u kaca ilaa uu ka gaaro intii la rabay hadda waxaa noogu muuqdo inuu oksijiinka xogaa uu ilaa 90 uu soo gaaray mashiinka hawada ayaa caawiyey neeftiisa laakiin natiijada raajitada oo hadda la keenay ayaa bixinaysa sawir sax ah marka yani raajada hadda waxaan ku aragnaa calaamadaha coronavirus ugu muhiimsan macnaheedu waxa waaye fayrasku wuxuu saameeyey sababaha badankiisa uu saameeyey marka qofkan yani xaaladiisa aad ay xogaa usii xuntaa yani waa ku dadaalayna aniga yani markii qof bukaan la keeno kale inaad quustid macnaha kamid oo macnaha xirfadda dhakhtarnimo kamid ah si lama filaan ah oksijiinkiisa ayaa hoos u dhacday asaga furtay adkaysan ku dhino macnaha iska furinkan wuxuu isku dayayaa inuu tukado waxay ahaan lahayd salaadiisii ugu dambaysay saacada kadib ayuu geeriyooday magaciisa waxaa lagu darayaa tirada rasmiga ah ee dhimashada guud hadda waxaa samaynayaa total dhimashada isbitaalkii dadkii dhinteen waqtigii dhinteen qaybahay ku dhinteen iyo sababahay u dhinteen
mid ka mid a xilalka Dr. Xilwa waa inay dawladda u dirto xogta dadka u dhintay COVID-19. laakiin Dr. Xilwa way og tahay in tirada dhabta ah ee u dhimatay COVID ay aad uga badan tahay tirada dawladdu sheegto. labadii bilood ee aanu duubaynay qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka xataa nus ka mid ah lama buuxinin. waxay ka aaminsan yihiin meel isbitaalka meel lagu dhimanayo meel xabsi ah oo maxaa la dhahaa aysan awood heli karin oo aysan soo bixi karin. isbitaalka waxyaabo badan ay ka aaminsan yihiin dadka. martiin hay geenin isbitaal hay geenin haddii meeshaas inta guriga ku dhintay ay fiicanta meeshaas la geen lahaa. saboolnimo iyo dagaal, cabsi iyo rajabeel waxa ay ka mid yihiin xaaladaha curyaaminaya isku daygii ay dawladdu wax kaga qaban lahayd fayraska. weli waxaa jira caqabado kale. waa ceebaynta qabsanaysa qof kastoo laga helo cudurkan. dadka inta badan dhalinyarada waxay dareemayaan haddii xanuunkan aan positive noqono hadhow dhibaato maxaa imaan karto. wallaahi dadka waxay u dareemayaan qof hebel positive aa noqotay just inay dadkii ka dhex soocmayaan oo maxaa la dhahaa si gooni ay ka noqonayaan oo kale. tirada yar ee caawimaadda u soo raadsatay isbitaalka Martini inta badan waxay yimaadaan goor dambe. laakiin shaqaalaha caafimaad ee isbitaalka Martini dad badan ayay badbaadiyeen. hooyo Faadumo oo aan la kulannay iyadoo isbitaalka la keenay 18 cisho ka hor way bogsatay waxayna aadaysaa gurigeeda. maanta ka war maanta waa fiican alxamdulillah ilaahay aadan wanaagsan khayr allah idin siiyay kara maalintii naqaska ku haymeen bismillaah rahmaan wa bahadika wiilkeeda Yaxye ayaa u yimid inuu kaxeeyo. isbitaal Martini waxay ka aaminsan yihiin meel dadka lagu qasho ama meel dadka marka la keensado oo midkooda lagu qaato. war isbitaalka saas ma ahan. isbitaalka waxa waaye waa meel daryeel ah har iyo habeen 24 oo heegan lagu yahay. waxaa mahad aan u celinayaa insha Allah taala dhaqaatiirtii neersaskii iyo dadkii oo ku dhafraay har iyo habeen oo ku soo jeeday bukaanada hooyada kaliya ma joogto. waxaa jiraan bukaano qaar ah oo caafimaadeen oo markii meeshan la keenayo aad u xanuunsanay. markaas farxad waxaan dareemnaa inaan naf badbaadinay inaan wax qabanay. 3 qof agteeda ku dhimatay 2 gabdhood iyo wiil. ilaahay baan aaminay iska ashhaadanay salaadaydaan u jeestay. markii bukaan isbitaalka ii jiifay oo caawuqaani uu soo ritay oo aan isbitaalka discharge ugu sameeyo oo aan ka saaro oo aan ku dhaho war maanta wad caafimaad qabtaa xaafadda aad waliba asigoo soconaya oo isbitaalka uu ka baxo. taasi waxay i tusaysaa inaan ku guuleystay shaqadeedii 100%. waxay ii tahay dhiirigelin waa weyne i farxad gelisa. xabaalqodayaashu waxay weli u diyaargaroobayaan meydad kale oo la keeno. nasiib darro kadib 10 sano oo dagaal lagu jiray Soomaalidu waxay noqdeen dad la qabsaday dhimashada. dadka oo ka gaabinaya inay ka qayb qaataan joojinta cudurkan khatarta ah ayaa sababtay in dad badan u dhintaan. intooda badan guryahay ku dhimanayaan. weligeenna ma ogaan doono tirada Soomaalida uu salfaday cudurkan dilaaga ah ee aamusan COVID-19.